socdaal dheer oo muddooyinkii ugu dambeeyay uu ku jiray raxajagada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga mucaaradka wadani ambassador Maxamed Cali Aw Cabdi oo uu ku marayay magaalooyinka iyo tuulooyinka gobolka Awdal ayna ku xoojinayay taageerada xisbiga mucaaradka ee isbedel doonka wadani ay u hayaan dadka reer Awdal ayaa maanta waxa uu socdaalkii mar labaad u jihaystay dal aroor horosaaka uu ka bilaabay musharax Maxamed Cali Aw Cabdi iyo wafdigii la socday deegaanka Goraya Cawl ayaa tuulo waxay u mareen guud ahaanba koonfurta gobolka Awdal iyagoo ka gaadhay ilaa iyo deegaanka Garbihaadley magaalooyinka sida weyn loogu soo dhaweeyay musharaxa ee loogu muujiyay in cod heel iyo hooba lala garab taagan yahay xisbiga mucaaradka wadani ayaaba waxa kamid ah deegaanka magaalo cad Garbihaadley dhammaanba shacabkii musharaxa ku soo dhaweeyay deegaanadaasi ayaaba waxay ka sinaayeen isbedel doonka ah ee xisbiga mucaaradka wadani kuwan dadka iyagu xisbiga mucaaradka wadani isbedelka ugu baaqay shacabka Soomaaliland ku qanacsan oo maanta musharaxa ku soo dhaweeyay magaalooyinkaasi kala duwan ee uu maray rajaynayna inaad codka siisaan Maxamed Cali Aw Cabdi soo wadani ma tiidin codkiina soo wadani siin maysaan inuu cadaalada iyo xaqa sugo ayaan ku faraxsanahay ayaa ila dherginaya wadani waayo dhulkeena dheraga hashaanin baan deeq weyn dhashaan ilaahay noo uga rag iyo dumarba waa dhergaysin hal uga xusbiga wadani ha noolaado iyo qabyaalada intaba ku sameeyay dalka Soomaaliland dhamaanteed baaldega madaxweyne damalo waxa yimid dictoro maybadaaye aad ugu dabaaldeg dhibaatooyinka iyo darxumada iyo dulliga xisbiga kulmiye walaalayaal inoo geystay baan doonaynaa maanta inaynu ka baxno anigu waxaan ahaa gudoomiyihii hore kulley waxaan ahaa xisbigii kulmiye ee 5 sanaan xisbiga u soo shaqeeyay xisbigaasi wuxuu ahaana waan ogaaday sidaas oo kalena iyagana xubnigii wafdiga ee ku weelinayay musharax Maxamed Cali Aw Cabdi socdaalka ballaaran ayaa waxa ay bulshadaasi u sheegeen 13 bisha inay fartooda ku bedelaan waxa ay 7 sano soo arkeen waa siday hadalka u dhigeen iyo xisbiga kulmiye waxaynu ku ridaynaa wadani kulmiye waxba idin qabtay waxaan rajaynaynaa haddii ay la isbedel weyn xisbigu isbedel doon weeyi waa muujiseen inaad diyaar u tihiin 25 sano dad aan waxba idinku soo celinayn baad shacabka u tumayseen oo u haraadayseen oo u ordayseen haddaan nahay dadweynaha reer magaalo cad ee xusbiga maray kaararkiinaasi gacantiina ku haya qalankii aanu aan hayay ee ku shaqaynayay ayaa xagga sare lagaga dhigay waxay ka mid tahay ololaha xisbiga isbedel doonka iyo horumarka ee wadani uu ku doonayo inuu qabto hoggaanka iyo maamulka Soomaaliland dambeyn aqoonyahan musharax Maxamed Cali Aw Cabdi musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa bulshadii soo dhaweysay si weyn ugu mahad celiyay sidoo kalena ka codsaday inay isbedelka heel iyo hooba la garab istaagaan kulmiye wuu idin imanaya kaararku idinka iibsanaya $5 iyo $10 buu idin qaybinaya kaarkana wuu googoynayaa waxa la oranayaa baal dheere cid kuma noola codka halka ka soo baxa la tirinaya kaasa wax la idinku qabanaya haday caafimaad tahay haday biyo tahay haday waxbarasho tahayba xisbiga wadani ayaa soo dhaweynayna gamco furan ku soo dhawaada 750 kaarsow diyaar uma tiina ilaahay waxaan ka baryanaa isbedelka rabnaa inuu noqdo mid khayr qaba oo ilaahay mid khayr qaba inooga dhiga amiindhaha waxaanu uga ololaynaa xisbigii kulmiye ee cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa Wahori Ahmed Hori shabakada caalamiga Borama News magaalada Borama